shakhsiyaadka ku sifaysan inay lacagta somalilan dhaqaaqeeda ama hirgelinteeda hor joogaan iyagoo leh dano ganacsi iyo dano interest oo u gaara waanu ognahay ishana waan ku haynaa waxaana laga qaadi doonaa tallaabo adag oy ka shallaayaan waayo qaran baan nahay awooddeedaan leenahay ogolaan mayno in ummadda aynu somalilan ama dadka dayartaa in cunaha lagu qabto laguna haysto ay hostage ku noqdaan ama la haysto ku noqdaan lacagan dalka ka soconayn shaqaalaha dawladda waxaa lagu siin doonaa lacagtooda somalilan kolley waa arrimahan ka horleeci maayo qofka shaqaalihi wuxuu qaadanaya lacagta somalilan wuxuuna la tegayaa suuqa lacagta somalilan qofkii diida tallaaba laga qaadi doonaa kolley amarada weynka soo socda bixi doona weeye ciddii sarif u baahanna bangiga somalilan wuxuu soo diyaariyay loo sarifo qiimaha maalintaa joogtana loogu sarifaya awaada markaa sabab inagu dhejisa lacag forjariyo aynaan lahayn ma jirto waxaa kaloo ku dali lahaa lacagtii laftirkeeda xaaraan tahayd ee gilbaar tahay ayaa iyadii haddana forjari yeelatay xalay waad maqlayseen qolada maamulka puntland waxay gubeen 400 milyan halkan way soo gashay baa lagu yidhi sida report ku hayno waxaan u sheegaynaa shakhsiyaadka haysta lacagta forjariga ee dadka u qarinaya mar alliya marka loo soo sheego halkay joogaan iyo lacagta ay hayaan dawladdu way ka qaadaysaa isagana xabsiga loo taxaabaya imikaba raal gabal lama sheegin ma jirto u dul qaadan mayno in dadka dayarta cunaha la qabto iyadoo qaran ka mas-uul yahay dawladda somaliland maanta jirto